dastuurku sanad u qori waayay muxuu u qori waayay 6 bilood maxaa ku soo koobay 12 maxaa dhibayay dadkii dalkan jeclaa ee dastuurka qoray maxay 12 u qaateen maxay se madaxweynaha hadduu 12 ka cisho dhaafo ay uga wareejiyeen awoodda waa in dadku isweydiiyaan dastuurku maaha wax lagu ciyaaro oo maalin walba halkeen doono aynu ka istaagno hadduu ku shaqayn waayo inaad dhinaca ka istaagto hadduu ku shaqayn dhinaca ka istaagto simply madaxweynaha waxa looga dhigay 12 cisho in haddii uu ku dhaafo awooddu ay ka wareegto maxay la waxani waa xeer aw dalku u baahan yahay anigu uma baahni adigu uma baahnid xisbiga wadan uma baahna xisbiga kulmiye uma baahna xisbiga cud uma baahna qaranka u baahan madaxweynuhu 12 cisho u dhaafay hadiiba xataa aan la qaadano inuu dalku vacuum ku jiray xaga golaha 7 bisha ilaa 3 bishii 8 haday baanu qaadano inkastoo aanu aaminsanahay inuu mar walba gudoomiye hore aw temporary ahaa aanu qaban kari lahaa oo 3 maalmood ay tahay laakiin hadiiba aan la qaato tay aaminsan yihiin xildhibaanada naga soo horjeeday iyo gudoomiyuhu hadiiba aan la qaato madaxweynuhu gacanta wuxuu ku hayay xeerka 26 cisho uu ku dhacay xeerkii waxay tahay anaga kaliya nooga furan inaanu faafino maaha in lagu murmo maaha in muxuu ahaa shacabka aanu metelno loo gudbiyo waxyaabo kala duwan anagu siyaasaddu waxay naga tahay dibadda halkan waxaanu ka hadalnaa waa xeerku intaas u qoraya waxaan runtii kale aan jeclaaday si ay dadka ugu yaro noqoto faahfaahin inaan kaliya ku daro xeerkan markii ugu dambeysay amendmentka lagu sameeyay 2011 waxa ku sameeyay musharaxa xisbiga wadani ee gudoomiyaha markaa ahaa xeerku hadda dib u akhridaan wuxuu ku jiraa internetka waanad ka heli doontaan meelo badan oo kale wuxuu qorayaa 10 sanaba mar way ka dhacaysaa muxuu ahaa liisanku sidoo kale wuxuu qorayaa 6 bilood ka hor liisanka waa in dib loo register gareeyaa hadalkaas waa hadal cad hadduu markaa ku beegan tahay sida gudoomiye xirsimaanintii dhawada uu sheegay hadday ku beegan tahay 22 December 6 bilood ka horna waxay ku beegan tahay June 22 maxaa khaldan markaa June 22 in la register gareeyo anu garamaayo waxaan u deey doonaa siyaasiyiinta anu meesha waxaan u imaadaa xeerkaasi uu baan ilaalinayaa kaasi uu baan akhriyaa kana joogi meeno inaanu xeerka akhrido haddii la taliyaasha sharcigu oo isku geyntooda wax ka khaldan yihiin ay qoraan waraaqadan oo kalena anagu waa ka jawaabinaa waxaan kale ku celinayaa la taliyaha sharcigu waa la taliye qofku hadduu kula taliyo waanad qaadataa waana diidaa go'aanka golahan waxa gaadha xildhibaanada la soo doortay gudoomiyaha golaha wakiiladu waa niman aad ixtiraam badan ugu hayo waa niman ogahay inuu la xajeclo badan ka leeyahay golaha laakiin aad iyo aad buu u degdegay maalintii dhaweyd ee uu golaha hor fadhiistay isagoo 29 mudane joogan waa dastuur jabin waa xeer jabin garan maayo halkuu uga wareegi doono waxaan rajaynayaa inuu taa ka jawaabo waxaan rajaynayaa inuu dadka ka siiyo xaal waxaan rajaynayaa inuu ku eekaado waxa loo igbaday gudoomiyuhu nama dheero waxba aan ahayn inuu na hogaamiyo isna waa xildhibaan qaran oo gudoomiye ah anaguna xildhibaano qaran baanay dhammaanteena waxa la noo doortay inaanu dastuurka dalka iyo xeerarkiisa ilaalino qofnaba laga yeeli maayo qofna kama sareeyo xeerka iyo dastuurka dalka gudoomiyuhuna kama sareeyo madaxweynuhuna kama sareeyo xildhibaan barkad halkan wuxuu ka sheegay in madaxweynuhu hadduu ixtiraami waayo dastuurka iyo golaha isna aan la ixtiraameyn xildhibaanka halkan waxaan ugu celinayaa horta xildhibaanu baa tahay naftaadu maad u hadli kartaa sidan anuguba tayada aan ugu hadlayo waad noogu cod badan tahay waad ku sharfan tahay laakiin ma tihid afhayeenkii golaha oo golaha uma hadli kartid golahu uu kala qaybsan yahay 44 xildhibaan baanu halkaa waraaq ku saxeynay 29 xildhibaan baad gudaha ku fadhiisateen golihii hadduu 29 ka yahay aanu odhamaayo waa wada xildhibaano sharfan waa wada walaalahay si fiican baan isku wada naqaanaa laakiin waxay ku fadhiisteen arrin khalada dadka ayaana ka noqon doona markhaati taariikhduna way noo qori doontaa oo taariikhdu waxba ma ilowdo waa buugaa furan kamaradaha la iga duubayo waan ogahay haddaan noolaado anoo 8 jira oo laga yaabo inaan maalinta u cararayo madaxweynaha dalka in la ii soo qaadi doono kamaradan xildhibaankuna hala socodisna waa loo soo qaadi doonaa gudoomiyahana waa loo soo qaadi doonaa taariikhdu waxba ma ilowdo war waxaan leeyahay aynu ilaashano sumcadeena war qarankeena aynu ilaashano war dadkeena jilicda san leh ee aynu ku dul yooyootamayno aynu ilaalino waxaynu gudbino haddaynu xaqiiqo u gudbinayno alxamdulillah waa arrin fiican laakiin haddaynu xaqiiqada leexleexinayno haddaynu 26 ka dhigayno haddaynu 7 cisho 13 cisho ka dhigayno war dadka aynu waxa ka deeyno
waar dadku intaa in ka badan bay naga filayaan aad iyo aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii dee arrintaasi waxaan u malaynayaaba hadduu dee xildhibaanku u malaynayo 44ka xildhibaanee halkaa waraaqda ku saxeexay inay horta xisbiga kulmiye ay ka soo wada jeedaan bal tirada dib ha ugu noqdo waanaan ka xumaa inuu nagu tilmaamo xildhibaano yaroo la soo diro oo golaha loo diro inay qasgeliyaan talow markaa dee xildhibaanka isaga halkii laga soo diraa isagaan u diinaya waa su-aal aad iyo aad u muhiima maxaanu dibadda u istaagnay maxaana kalifay iyadoo aanu xaq u leenahay kuraasideeda iyo magacyadeedu ku yaaleen eenu mikrofoonada ka hadli karaynay maxaana kalifay inay dibadda istaagno waxaana kalifay waraaqdan oo kale runtii intaanaan golaha soo gelin waxaanu sii ogeyn oonu warkeedu aan ku haynay in waraaqdan laga akhriyo golaha waraaqdan oo aan waxba ku beysgaraysnayn sidaan sheegay waraaqdan haddii golaha laga hor akhriyo keliya waxaa furnayd sharciga waa la wada yaqaanaaye in anba madaxweynaha tiisii la ogolaado anba la diido 55 mudane lagu diido annaguna 55 mudane maanaan hayn 54 mudanaanu hayn wadada keliya noo furnayd waxay ahayd inaanu gartayda bannaan ka sheegano inaanu markaa aanu ka wada hadalno xildhibaan naga soo horjeediyo gudoomiyaha in sharciga lagu soo noqdo maxaa ilaa haddii sharciga loo qaatay in lagu jebinayo golahoo la furo iyo iyadoo la idhaahdo kalfadhigu uu xidhan yahay sidaa dalka uma shaqeeyo annaguna xildhibaano qaran baanu nahay haddaanu waddadaa joogno xildhibaano qaran baanu nahay haddaanu chamberka joogno xildhibaano qaran baanu nahay sharcigaana na siiyey taa dalkana waa u hadlaynaa xeerarka dalkana waa u hadlaynaa horta miisaaniyadda in golaha la keenaa waa arrin sharci waxaan arkayay gudoomiyuhu ku hanjabaya miisaaniyaddii waa la keenayaa sabtida waa la keenay miisaaniyadda guddidii dhaqaalaha ayay tegi doontaa wakhtigeedana waa loo codayn doonaa miisaaniyadda in la ogolaaday inaan la ogolayn waxay ku xidhantuun maxaa ku jira dadka ma u danbaa mise uma hadan kuma xidhnaa muxuu ahaa waa lays haystaa iyo xeer baa laga hadlaya hadduu gudoomiyuhu isku daray miisaaniyaddii iyo xeerka maanta laga hadlayo taasina waa mid aan aad ula yaabay miisaaniyaddu waa tan awalba sugaynay way naga habsaantay wakhtigeeda waa u fadhiisanaynaa wixii dadka u danana waanu ka yeelaynaa haddaanay dadka u dan ahayn waanu celinaynaa hadday dadka u dan tahayna waanu ansixinaynaa